بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الشرف تلميل كستا جوجتين وحاني وسلام سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي وين مeel kasta adduunka joogtana la hadlaa Soomaali weyn qaas ahaan heer Kampala tuugada maalmahan tuuga aad u socod tuugadana waxay noqotay waa tuuga xariif mid xariif ah tuugada waa la walaacad mid ka shalay oo kale inta mid xariif ah waxa imaaday meel meerid ganacsi oo imaaday waxa dhaay mobile gadana mobilkii markii loo dhiibay dhinacyo iska fiiriyay laba meel ku sheegtay la way idoo la qeylna war maqlay war meesha ma ka dhacay tuuga meesha meerida wax ka qaatay oo ganacsi oo wax ka dhacay Soomaali meel kasta joogtaan wax marka tuuga la arkay nin kasta وعرّا دبعت كلا أمرنا قبض مركز هذا نكسر دبعت كلا أمرنا نكسر باقينه قلابه دكتورنا هو نكسر مشان نكسر معه إمالي وأكتيني برزاز وعياله كلا ومجرى تاو ديدا برزاز وقلا نكي وعرّا رتوا أقولي دتكودي وده قالي وأكتين لوخ وقالي لوخ هذا قال نقف كمان يجان وبحسنا لكن وحلو بهاي نقف كست الصومالي أما ميرد الله هاتو أما عادة أو ساعته معلو بهاي إنه إسكت تحديرتي سيمبر في جناو سماه موبايل كذا ميل في عندك مركز له اللي اسمه لوك قل أو إلىكم سمدي ذا بابليك هدي ميلها أو خاص يو ميلها لامياش مركز مريسي موبايل كذا لو صوّع حتى أقبل وقتي لوجر وأكتي كريسمس واحد صادت كان بلاوانا مركز وقتي أنا كانت والد ديلا ما دتك الشركة لها العيا كسوق هذا ده كم دولار لا يخاطر يبقى اسمه حياة معلومة عن دتك ويفيرس دبعت هذا أبان Soomaali Kampala meel kasta ka diganta xaafada fufuk xaafada Kisii meel kasta tuugada way socotaan waxay u socdaan raxan wiil saaxiibkay hadda habeen dhaxdaas iko laba ahaayeen saddex qofooda kor imaatay ninkan geeso u baxay mid oday la socday waxay ku bilaabeen dilay ku bilaabeen dhig halkaana wax ka gaar ilaa amarkiis mobile muxeen mid kala qeyliyo kuwa kale inta xagga soo socda way carareen hadee laba iyo saddex u socdaan hadaa aragtiin ka istaaga gees u mara simbir ama qatar inuu iska dhigto anaga Soomaali saa u nahay dadkeena u dhina qatar inuu iska dhigto sanbuuqada laga bajin waa taqaani waa ogtiin Kampala dhibaatada ka dhacday ilaahay walaalkeen ilaahay caafimaad asiyo wiilkii ogaantay oo ogeedeen oo maskaxda jugta ku dhacda darteed wiilkan inta shirkadda ka shaqeeyo usani meel haasay ku helaan gacanta laga jibiyay dilwa iga isdileen ilaakum shanay ahaayeen inoo dileen bulaacad guliyeen inoo kab ka siyaana rabaa laakiin tiisa wax ka dhignay mid kamid ah wax ku gaaray marka dhagaxa meeshan lagu dilaa ma tuug xariif oo Soomaaliya kala ma ah Soomaaliya xariifku wuxuu ku leeyahay mid inoo ka saaro leeyahay saaxib iska daahdiye waa kaas ku tuug xariif la Soomaaliya wasna qaara laakiin meeshan ma aha dhagaxa la wata bacal wata ama waxa la wata ama istiraasha yar oo ay wataan waa lagu bilaabay bas ado harkan nimankan waa iska taqaanay raashinkooda cuna ugaali waxa iska badan mu gagsi kartaa Soomaaliya bariis iyo baas iska noqota hada hal mar la nool ahay nool anaga gadaal u dhaceena marka simbir iska taxadira waa ogtii meeshan dadka dibadda ka soo dhiibay waxa soo dhiibaan bil dhibaatada murugta ee kale loo celna diladu ku dhac dhibaato lacagta keen hada loo dhaawaa problem laakiin hada loo dil lagu bilaabay lacagtii la waayay adii daawo u baahan waa dhibaato walaalaha Soomaali meel kasta joogteen guriga xataa wala isku soo dara wala isku soo gala bal alas ilaaliyo taxadir weyn ala sameeyo nin kasta lacagta laba qofood soo socoto meesha haday cid la tahay joog ilaa qof kale ka soo baxayso meelahan boorsooyinka boodada marka raacaysiin walaalayaal dumarkeena la hadlaa iska taxadira boorsada marka la leeyahay boorsadina hata ay dil boorsadin meeshan waxay siin faanfaan aan iska dhaafo meeshan dadkan waa dad baahan waa ogtiin 100 shilin arzaq oo adin inoo intaas ninka Soomaali waxay ku leeyihiin waxay aaminsan dadkan inoo Soomaali habeenkii markay jiifaan oo barkinta lacag loo geliyo marka dadka waad ilaahay wada barkinta lacag loo geliyo anaga rafaada ku raadiyay ninka Soomaali maanta hadaa disho baarati ku leeyahay hadaa wax laga waayo waxa laga helaa 20 kun oo lacag Uganda mid boqolkiiba 90 waxay ku leeyihiin dollar jeebkooda ma laga waayo intee ka keenaan waana runtooda maxaa yeelay anaga faana jeebka lacag ugu qaadana
bal walaalayaal waxaas iska daaya marka toonka aadaysiin wax soo gadaysiin marka awiino aadaysiin marka shaqada ka soo baxaysiin marka meelaha ganacsi marka xaafadaha joogtiin is ilaaliya simbir is ilaaliya marka walaalayaal intaas ay subscribe noo saar noo share gareeya wax kasta laaga iyo commentiga xaqiina waaye wax kasta horumar insha Allah. Assalaamu calaykum wa rahmatullah.